xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa weli kacsan waxaana lagu soo waramayaa in mar kale xalay dagaalo culus ay ka dhaceen bartamaha magaaladaasi kaasi oo geystay khasaare kala duwan. Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad hubeysan ay weeraro gaadma ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin duleedka magaaladaasi. Mid ka mid ah weeraradan ayaa waxaa lagu beegsaday saldhig u dhow meel uu haatan degan yahay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac isla markaana ku kooban labada dhinac sida ay inooga soo waramayaan dadka deegaanka. Xiisad xoogan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in Saaka subaxnimadii hore ee Saaka ay markaasi ka istaagtay amaba ka aloosantay duleedka magaaladaasi taasi oo ka dhalatay weerarada lala beegsaday ciidamada Somaliland. Waxaa sidoo kale ciidamada ammaanka ay dhankooda bilaabeen dhaqdhaqaaqyo cusub iyo weliba howlgallo ay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyay weerarkii xalay halkaasi ka dhacay.